iyadoo ay milicda cadceedu ahayd mid aad u kulul ayaa haddana dadweyne aad u tiro badan ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee magaalada Boorama kuwaasi oo aan si aan kala had lahayn u soo dhaweeyay madaxweynihii hore ee dimuqraadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland horseeday mudane Daahir Rayaale Kaahin calanka astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliland sawirka madaxweynihii hore ee Soomaaliland caleemo qoyan iyo calanka xisbigii qodoba ayay dadweynahaasi tirada badan ee wadooyinka isugu soo baxay lulayeen qaar kamid ah dadweynahaasi oo ay saxaafadu la kulantay ayaa waxa ay cabireen dareenkooda ku aadan soo dhaweynta Daahir Rayaale Kaahin aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin soo dhaweyntiisa heer qaran baa loo soo dhaweeyay soo dhaweyntan soo dhaweynayna waxa weeyaan abaalgudkii oo ku lahaa ummadda Soomaaliland tii laga filayay weey magaalada Gabriel iyo ka hortagay madaxweynaha nagiyo bawr fara badan oo Boorama ka baxday anagoo aad bay dadku soo dhaweeyay halka ilaa Booramana waxaan arkaynay dad iyo dhul baabuur iyo dad wada socdaan arkaynay mar walba meel aan soo baran weyn gaariga cagta soo rogisay dadweynaha reer Boorama ee tirada badan ee ka qayb qaadanaya soo dhaweyntan ayaana u suurtagelin mudane Daahir Rayaale Kaahin inuu la hadlo waxa uu suurtagashay telefishinka caalamiga ah ee Hon Cable TV inuu ku booqdo guriga uu ku soo degay isla markaana runtii waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadkii maanta igu soo dhaweeyay gobolka Awdal gaar ahaan gabiilay soo xoran soo maray runtii oo dadku leeyahay waxaan rajaynayaa marka dambe inaan sii mari doono mahad ballaaran baan u jeedinayaa sida qiimaha ay soo dhaweeyeen waanan maaragtaanay runtii xusuus gaar ah inay ahaanaysaa soo dhaweynta ilaa Hargeysa ilaa halkan sida dadku soo dhaweeyeen dhalinyaradii gaar ahaan maanta qorraxda inta badan taagneed iyo haween iyo ragba salaan iyaan halkan uga soo jeedinayaa dalkaygu hooyana waa ku soo noqday si caadi ah oo xil hayay baan awal ma jiray anoo xil hayay baan maanta imanaya sharaf bay tahay maantana sidii awal lii soo dhaweeyay si ka badan lii soo dhaweeyay